Hassan Sheikh Mohamud was president of Somalia once before. Now he's back in office again. waxa ugu dambeyn la soo gabagabeeyay doorashada madaxweynaha Soomaaliya oo muddo hal sano ka badan dib loo dhigay waxaana ku guuleystay Hassan Sheikh Mohamud. haddaba waa kuma ninkan hore u ahaa madaxweynaha intayna muuqaalka u dagalin ugu hore muuqaalka like saarada channelka cusub tahay subscribe noo saar. Hassan Sheikh Mohamud waxa uu xilka madaxweynaha Soomaaliya soo dhameystay hal muddo xileed wuxuuna hadda ku laabanaya xafiiskiisa madaxtooyada ee Villa Soomaaliya kaasoo uu araminayay intii u dhaxaysay 2012 ilaa 2017 wuxuuna noqonaya madaxweynihii ugu horreeyay ee mar intuu muddo xileed dhameysto dib loo doorto. noloshiisa inteeda badan waxa uu ku soo qaatay shaqada macalinimada oo iskuulo badan iyo jaamacado wax uga soo dhigay sidoo ku sheegay khudbadiisa hadaljeedinta musharaxiinta kor inta aanu madaxweyne ka noqon Soomaaliya waxa uu ka mid ahaa xubnaha bulshada rayidka gudaha Soomaaliya ayuu ka shaqayn jiray intuu dalku ku jiray burburkii ka dhashay dagaaladii sokeeye. sanadka 1950 ayuu Hassan Sheikh u dhashay degmada Jalaqsi ee gobolka Hiiraan ee dalka Soomaaliya. haddana waa 60 jir ilaa 70 jir. waxbarashadiisa asaasiga waxa uu ku qaatay magaalada uu ka soo jeedo halka waxbarashada sare ee jaamacadda uu ka dhigtay magaalada Muqdisho oo uu wareegay. sanadka 1980 ayuu ka qalin jabiyay kulliyadda tiknoolajiyadda ee jaamacadda kadib waxa uu heerka sare ee jaamacadda ka soo bartay waddanka Hindiya. markuu dalka dib ugu soo laabtay Hassan Sheikh Mohamud waxa uu shaqaale ka noqday wasaaradda tacliinta Soomaaliya isagoo macallin ka soo noqday iskuulo iyo jaamacado. shaqooyinkiisii ugu horreeyay waxa ka mid ahaa inuu tababare ka noqdo dugsiga farsamada ee Lafoole. inta badan shaqooyinkiisa waxay hayeen waxbarid ama macalinimada. marka laga soo tago xirfadiisa baranimo iyo siyaasadda sidoo kale waa ganacsade isku abaabulay. bishii Agoosto ee sanadii 2012 Hassan waxa uu xubin ka noqday baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo markaasi la dhisay. 10 bishii Sebtembar ee sanadkii 2012 xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa Hassan Sheikh Mohamud u doortay inuu noqdo madaxweynaha Soomaaliya kadib markii la qabtay doorashada badan. Hassan waxa uu hoggaanka u qabtay dawladda ugu horreysay ee Soomaaliya laga hirgeliyo 20 sano taasoo aan ahayn ku meel gaadh. dawladihii ka horreeyay ee la dhisay kadib 1991 waxay ahaayeen kuwo ku meel gaadh ah. madaxweynihii ka horreeyay Shariif Sheikh Ahmed oo sidoo kale u tartamayay xilka ayaa ugu hambeliyay guushiisa wuxuuna ballan qaaday inuu la shaqayn doono. dawladdii Hassan Sheikh ayaa caan ku ahayd inay ka soo dhex muuqdaan shakhsiyaad siyaasadda ku cusbaa waxaana loo yaqaanay dam jadiid. kila doortay madaxweynaha waa xilka ra'iisul wasaaraha u magacaabay Cabdi Faarax Shirdoon oo ku cusbaa siyaasadda. 10 sano uu xilkaasi hayay waxay dawladdiisu ku mashquulsanayd dib-u-dhiska hay'adaha dawladda wax ka qabashada amni darrada iyo dagaalka ka dhanka ah dhaqdhaqaaqa al-shabaab. 12 bishii Sebtembar sanadii 2012 waxay 2 maalmood kadib markii Hassan Sheikh Mohamud loo doortay xilka madaxweynaha ayaa qarax lala eegtay madaxweynaha oo khudbad ka jeedinaya shir Muqdisho kula yeeshay wafdi ajaanib ah oo ay 2 qof oo naftooda horeeyaal ahi isku qarxiyeen hoteelka Jasiira ee mas'uuliyiintu ku shirayeen. Hassan ayaa u muuqday inuusan saameyn weyn ku yeelan dhawaaqa qaraxa. hadalkiisa ayuuna sii watay isagoo aan hakad gelin. shirkaasi madaxdii ka qayb gashay waxaa ka mid ahaa wasiirka arrimaha dibadda ee Kenya Zam Ongeri balse khasaarihii dhacdadaasi ka dhashay waxba kama soo gaadhin waftigii martida ahaa. sanadii 2013 Hassan Sheikh Mohamud waxa magaciisa lagu soo daray liiska 100 qof ee ugu saameynta badan leh caalamka waa liis ay sanadkiiba hal mar soo saarto majalada Time ee dalka Mareykanka. qormada ay majaladu daabacday 18 bishii Abriil ee sanadkaasi waxa lagu sheegay in sababta Hassan Sheikh Mohamud loogu xushay liiska 100 qof ee ugu saameynta badan leh adduunka ay ka mid yihiin dadaalada uu sameeyay horumarinta dib u heshiisiinta qaran, la dagaalanka musuqmaasuqa iyo isbedelada wax looga qabanayo amniga. hogaamiyaha dawladda ugu horreysay ee dastuuriga ah ee Soomaaliya laga dhiso 20 sano kadib madaxweyne Hassan Sheikh Mohamud waxa uu astaan u yahay kalsoonida sii kordhaysay ee Afrika oo dib u soo noolaanaysa taariikhdeedii hore. xasiloonida iyo horumarka ayaa lagu yiri qormadan majalada. waxyaabaha ugu waaweyn ee Hassan Sheikh Mohamud iyo dawladdiisa ugu madaxweynaha ka ahaa lagu xasuusto waxaa ka mid ahaa in dacwadda muranka badda ee u dhaxaysay Soomaaliya iyo Kenya ay u gudbiyay maxkamadda caalamiga ee cadaaladda ICJ
diyaargarow kadib 13 bishii July ee dowladda Soomaaliya si rasmi ah dacwaddaasi u gudbisay maxkamadda ICJ halka Kenya laga sugayay inay dhankeeda ka jawaabto. sanado kadib 12 bishii Oktoobar ee sanadii 2021 ay garsooriyaasha maxkamadda fadhigeedu yahay magaalada Hague ee dalka Netherland ku dhawaaqday go'aankiiska ay guush ku raacday dhanka iyo Soomaaliya. laakiinse yeeshee xilligaasi waxaa Soomaaliya ka jirtay dowladdu hogaaminayo Maxamed Cabdilaahi Farmaajo taasoo halkeeda ka sii waday dadaalka loogu dooday xadka badda ee isku haysteen labada dowladeed ee dariska ah. intan aynu ku eegi doonaa muuqaalkeena maanta. muuqaalkan ku xiiso geliye inaga ilaawan muuqaalka leeyahay noo saarto isla markaana channelka subscribe noo saarto. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.